gabadha aan daahirka ahayn ma u banaan tahay inay kitaabka qur-aanka qaado? gabadha aan daahirka ahayn aksarka culamadu waxay yidhaahdaan uma banaana kitaabka inay taabataa uma banaana. oo musxafka taabashaday taabanaysaa waa mid aan u banaanayn oo jaa-is ahayn. ee haddii xadasul akbar marka ay qabto ama ay dhiiggiiba leedahay caadada ama nifaaska amaba ay janaabo leedahay waa inay musxafka taaban oo aynay markaa waxa yani markaa jirkeeda aynay taabsin musxafka. waan laa yamasa alqur'aana ilaa طaahir xadiiska ahlucilmiga qaarkood quweeyeen bay u daliishadeen waa inaanu qur'aanka taaban mid طaahira mooyaane mid kale. xadiiskan ahlucilmiga qaarkood baa quweeyey oo yihi waa xadiis xasana. adilo kaleo marka mawduuca xoog leh oo ku soo aroortay lama hayo oy axaadiista kale ku timi mawduuca marka waxba kama asixin. saas aawadeed yani sida ixtiyaadka badan axwadka ahi waa inay taaban camalan bi hada alxadiis iyadoo lala qabo inuu ixtimaal ku jiro, lakin sida axwadka ayaa saas yada ah wallahu aclam.